بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ساكي ميلان كسو كلاهي marka ina caamiran rabaa inaan u jawaabo ninka la leeyahay caamir oo burushka xaarka wata oo habar gidir inuu cambaareeyo magaalada Ingiriiska inuu yimid Itoobiya inuu rufiyaanay oo dhahaayeen ma habar gidir kursi lagu fadhiisina walaalayaal waa la isdarsay hadda caamiro geedka kurtida lagu le koraa kelmadda tiraahoteeda kala lagu dhahaa nin iyo naag lagu kala hari maayo barkay bullshit baa tahay asalkaada wuxuu yahay anigu ooyaasha waxba ka sheegi maayo laakiin sidaba waxa tahay xaran ku nool nacsa oo maaragtay siiri habar gidir cayda ku baxday hal caayo ragnimadaada shaki ku jira ayaa la yiri sida aan maqlay maxaa habar gidir ka caynay ya habar gidir maxaa ka caynay xoolo may ka qabaan hooyada may dileen aabaha may dileen ya siyaasadda ma taqaanid anke inaad dadka burush boosaneera ad korkooda marisa kaliya ayaa taqaanaa laakiin waa lagu fahmay inaad tahay caado qaato la soo dirsado dawladdu soo dirsatay waa lagu wada dareensan yahay ishaana lagu hayaa ee waxaan ku leeyahay matantaha iskaga xaarin afxumadaada laga bartay sinjeedada laga bartay afxumada habar gidir shiiq iyo shariif ay leedahay siyaasiyiin ay leedahay wax garad ay leedahay gabdho iyo wiilalba waa leedahay laakiin waxaad burushka xaarka aad u marinaysid oo dariiqyada aad ula joogtid adoo u shaqeeyay Itoobiya iyo Xasan Sheekh winoo waa kula fahmay nin kastoo caado qaataa oo dawladda Xasan Sheekh ka tirsan inuu habar gidir burush xaara mariyo liiraa bax soo caay walaal waa lagu fahmay ninna kaagama daba xumo cayda aad dadka caynaysid waxaan leeyahay offense-ka aad dadka offengareynaysid you can stop now barkee dadku stupid maahan inaad UK timid oo dadka aad caayaysid oo habar gidir aad gabar iyo wiil waxba u kala reebanin waa lagu ogyahay laakiin waa ogaan doonaa anigu waxyaalo badan aan la socdaa barnaamijyada waa ogahay dadka ka dambeeya everything waa ogahay waxa la yiri gaad badna waa loo gogol badiyaa laakiin mar baa reality-gana la iskugu imaan doonaa oo dad dhaha oo magacyadoodu laanka igu jiraan oo complain micna daraadixiyay ayakay ku biyo shuban doontaa hadaladooda markii lagu turjumo in language oo adduunyada looga hadlo especially in English barkee Addis iyo Google ma yaqaanaan dadka u fangareeya ama dadka qofka bilaadanka waa la xifaaladu waa furan tahay laakiin cayda oo burushka xaarka oo lacagaha lagu soo qaadanayo oo habar gidir la marmarinayo dushooda waa diidnay waana laga soo horjeedaa international kuna dadka waa u kala dhagan nugul yahay bal dawladda Xasan Sheekh Maxamuud waa arki doonaa meesha ay raad ku yeelato iyo ragga u shaqeeya shalay tii hore haduu caynayay iyo Faad Yaasiin iyo ragga la leeyahay cadqaatay noqdeen bal asaga maanta ka daray Siciid dibi dhalye waa ogaanayna meesha sheekadana ay ku dambayso barkee we know investment madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya oo lacag ku bixiyay Mr. Xasan Sheekh dadka noocaas oo kala inay dadka caayaan waxa la qaataa ninkaana calooshiisu shaqaysta ahayn shilin aan lagu sheegan karin oo soo rabana u hadli kara ma fahant oo ninna aan uga aabayeelaynin inuu shilin laaluusha ka qaato understand laakiin Soomaalida iyo dawladda hadda jirta government-ga hadda jira Soomaaliya waa all corruption xoog leh iyo waxa ka socda lacagii shacabka lahaayeen oo sida la rabay laga yeelayo oo loo isticmaalayo shakhsiyaal gooniya insha Allah waa arki doonaa ilaahay wixii uu raalli ka yahay kaliya soconayo wixii rabbi uu raalli ka ahayn ma soconayaan marka waa in salaamay waan is arkaynaa hadhowti markii aan shaqada ka soo baxo insha Allah bidnillaahi alkariim ciao